markaa buu nabigu may Cabbaas u sheeg ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la leeynay maaha ku dhamaanto waa maalintii naxariis wama arsal naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما شاء الله إلهي بان كو حمدنا مر والبا نعم فربضان بو إلهي دوشينا او دغاي نعمت إلهي نسيي نعمد ugu weyni waa alhidaaya waa hanuunka weeyaan in ilaahay ku hanuuniyo oo dariiqa xaq ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu ka dhigo nicamta adduunka dusheeda inta la joogo ilaahay uu bixiyo waa nicmada ugu weyn weeyaan inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxa cadeynaysa salaada markaan tukanayno keena faqiirka keena qaniga keena lab iyo keena dhidig keena madaxa iyo keena mijaha su'aasha kaliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay inuu ku weydiisto waa su'aal waliba ku soo aroortay suurada Faatixada dhexdeeda suurada Faatixaduna waxa weeyaan waa rukn min arkaani salaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kiilaha la salaata liman lam yaqra bi ummi alquran suuradaas suuratul Faatixa qofka aanan akhrisan buu nabigu yiri salaad ma leh oo salaadu ma ahaanin salaadaas marka suuradaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya su'aasha kaliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suurada aan akhrisanayno waa ihdina as-sirata al-mustaqim ilaahu dariiqa mustaqimkaaga ilaahu nagu toosiyo namari taasa marka cadaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyay inay tahay al-hidaayah hidaayaduna wax kala ma ahayn waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay azza wa jalla ayaa mulkiyo ilaahay baa haya hanuunkaas qofka ilaahay khayr uu la raba ilaahay nuurkana qalbigiisa uu yeelaa hanuunka ilaahay baa bixiya hatta malaa'iktu ma bixin karto nabiyaduna ma bixin karaan oo nabi hadii uu mulkiyo hidaayadu nabi bixinayo nabi nuux alayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa nabi ibraahimna aabihi buu siin lahaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaamna adeerkii Abu Talib buu siin lahaa laakiin hidaayadaasi waa hidaayatu tawfiiq ilaahay baa hayo ilaahay baa mulkiya oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam adeerkii Abu Talib oo nabigeena soo gacan hayay oo soo koriyay oo kursiinta nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qayb weyn ku lahaa markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nabigu ziyaarto uu galay waxa uga sii horeeyo la joogay marka Abu Jahl alayhi la'na dadna marka Abu nabigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yiri ya ammi qul la ilaha illa allah uhajju laka biha 'inda allah yawm al-qiyamah adeer waxaad ii tiraahdaa hal mar kaliya aniga imaqashii oo waxaad tiraahdaa la ilaha illa allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna ma aragtaan ku dacwin doonaaye oo ilaahay azza wa jalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi laana nabigeena alayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nabigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yiri laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay
inay ummadaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo. deedna nebigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sala allahu calayh wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo. taabuu markaa nebigu adeerka abu taalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye. deedna nebigeena sala allahu calayh wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahl calayhi lacna fircawna haadihi lumma ayaa markaa ku yidhi abaa taalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee milladii cabdulmutalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa? deedna markaasuu iska aamusay abu taalib haa iyo maya midna ma odhan. deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama, hal mar adeer aniga kelmaddaa i maqashii maalinka qiyaamahaan ku shafeecad qaade. hadalkii u dambaysay abaa taalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmutalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa. deedna naftiina way ka dhacday. labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas. maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu korsiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo racaayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu taalib uu ka soo qaatay. khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa, laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo. ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin. kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi. waa hidaayada tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh. ka aan doona annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal, kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi. marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiye, cid kale ma hayso. oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda, bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa taalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa, abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa. hidaayadda haddii ay cid milkinayso maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa uu siin lahaa. marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla, kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya, kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyeeya oo lumiya. muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi weliba wakallama allaahu muusa takliima. waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam. nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray, ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdona waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan. waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy, muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas. waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey, rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna. kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa. limaada? jibriil waa malak, ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey. ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine, ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay. marka hanuunka ilaahay baa bixiya. innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey. laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhuma min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin. wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannah wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin. waa laba qiso oo cajiibah fii suurati taxriim bay ku taallaa awaakhirkeeda. waa laba qiso cibro qaadasho leh oo la raba inaad ku cibro qaadatid ood islaamnimada iyo hidaayadda ilaahay kugu deequu ku siiyey adoo aanan weydiisan baa ilaahay qof muslima ilaahay uu kaa dhige.
وإن النعمة إلهي تبارك وتعالى أن أقوم هذنا أن قدرنا والله بحاس لبضوا باللبن النبي بكوهس نولايين مدوى زوجة نوح عليه السلام مدوى زوجة اللوط عليه السلام لبدا النبي حاسس كودينا إلهي هداية الباب دي وكحدي قال لما أي كلن نولايين يكو قال لما ذا قرسنايا أي هوستا قال لما كو قرسنايين النبي ذن وي خائمين وين خيانيين نارتا كواريا وندبا إلهي لو كوا نارتا كواريي ayaad ma oogatihiina naarta la galaba kuwa ku nidhiba ilaahay yiri halka la yiri taaqiya fir'aun oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 26 juz oo quraanka ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo fir'aun wixii dhaxmar lagu soo celceliyay fir'aun oo kibirkiisa iyo qooqiisa ilaahay quraanka uu noogaga waramay fahashara fanada faqala ana rabbukum al'ala ninka dadka intuu u yeedho fagaaraha soo joojiyay ku yiri rabbigii koreeye sareeye waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku nooleeyna ilaahay azza wa jalla hidaayada ilaahay ku galladaystay oo ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibni li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga guri agtaada iiga dhismay ku tiri agtaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iiga dhismay odhana waxay tiri إلهه وحرب جنة إن أكتاد أقل عنك أديك الدستا وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن حدد إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا maxaa yeelay jannooyinka ayada ayaa ugu sarreysa ayadaana ugu dhaxayso waa bartamaha ku toosan tahay arshiga rahmaanka ayaa saqfigeeda ah wabiyalka jannada maro oo dhan ayada ka bilaamaana ka burqamaan buu nabigu yiri gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibni li indaka baytan fil jannah tarabbat fi bayti fir'aun wa 'ashat fi bayti fir'aun wa ra'at tuqyana fir'aun kibirki fir'aun bay u soo jeeday arkaysay مجتمع ay ku dhex barbaartay waa mujtamac ninka haysta uu leeyahay aniga ayaa rabbiya ma alimtu lakum min ilahin ghayri ilah aniga aan ahayn oo kale oo ogahay oo ni ogahay ma jirtee aniga ilaahay i caabuda shakhsiga sidaa leh gabadha guriga ninka uu degan yahay ku barbaartay ilaahay azza wa jalla qalbigeeda waxa uu ku sharxay ilaahay jiritaankiisu inuu yahay xaq nabi Muuse calayhi salaam رسالتيسو حق إنay tahay ba qalbigeeda lagu sharxay waxayna ku ducaysanaysaa ay leedahay rabbi ibni li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga waxaan ku weydiisanayaa agtaada guri ilaahu iiga dhis wanajini min fir'auna wa 'amalihi fir'auna ilaahu iga foge amalkiisana ilaahu iga dheere gaalka ilaahu aniga iga dheere gaalada acmaashoodan ilaahu iga dheere gaalku uu ku taasiirin uu ku saameyn مجتمع ويس السامعيان هذا المجتمع مسلم آل هايستو وحكا لها كوبا دلنا وقو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة دين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تكون نحن لا مسلم قد كو أجنو لا تو هبا كو أجا جوتي دي هبا كو أجرفاد دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو قبغين إنه قالوا بو إن تكون أجنو لا تا يا كو خير بدن لذلك قبضها وحي لهي فرعون كليه يقفوقه ملا وحي لهي عمل كيسن إلهه يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إلهه إياكنا يقدر بيتدي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يلا وإلهي أسماء إلهي وحاكمه الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري موسى السامريين إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنون يوم مؤمن نبي الرسول وكليم الله بالله قد يقي لابدي هوين النبي النوحي النبي لوط أي كلاقبين اللي بن نبي هوسود وكبر بارتينا الباب كهداية الله مفرين تي قصر فرعون كبر بارتينا آسية بنت مزاحم ولما وحى نبي قلوب بالشاريي إلى النقونيس وحاسس النبي محمد جنة الله قدس دونه كم النقونيس إلهي هداية سجى بحية
innaka ilaahay waa inoo nicmeeyey dadkan khaasatan afka luqadan soomaaliga ee ku hadlayo fahmayo ee ku hadlow si gaara ilaahay ugu xamdino muslimiin baa ilaahay naga dhigay aabbayaasheen muslim walaalaheen muslim awowyaasheen muslim ajdaadeennu muslim ciddaad ka soo jeedda waa muslim saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nicamta khaaska innaka inoo khaaska wallahi iyaku maynan helin saxaabada rasuulka siiradooda markii loo noqday isagii hadduu muslim noqdo aabbihii gaalnimadu ku sugnaa khaalid ibnu saciid baa ka mid ah saxaabiga loodhan jiray allaha raalli ka noqde khaalid ibnu saciid wuxuu ku manaamay asbaabta uu ku islaamay waxaa ka mid ahayd isaga oo wuxuu ku manaamay aabbihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaadanaya oo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halkaa guntiga uu ka hayo daedna markaasaan hurdadii ka kacay buu yidhi argagax abubakar sidiiq baan u sheego on ku yidhi abubakarow maxamed adigaa rumeeyo raacee bal manaamkanaan arkay ii cabir baan ku yidhi buuhi markaa ii cabir riyada wanaagsanaad ku riyootaa dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa waa waxay kugu cabbiraan laakiin waxaa la yidhahdo xulumka hawaawiga ee naxdinta badanla lama sheego waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam daedna saxaabigaasi u ordo wuxuu u sheegay abubakar sidiiq baa ku yidhi manaamka aad aragtay waa xaq aabbahaa naar buu ku dhacayaayoo gaalnimadaa uu ku jiro kufriga iyo shirkigaabuu ku dhimanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintan uu inoola yimid ee waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaane aniga isoo raac buu nebiguna leeyahay wa ana aakhuduhum bixujazikum min annaar wa antum tufallituuna min yadaya anigoona guntigaasaan iniga hayaa halkaa dhexirka ayaan ini hayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam si aad naarta ugu dhicin baan iniga xajinayaa ininkuna waad iska kay gundhanaysaan oo naartaad ku hoobanaysaan buu rasuulku yidhi daedna riyadii markuu u sheegay buu yihi wallaahi manaamkaa lagu tusay waa xaq aabbahaa naar buu ku dambayni doonaa naar buuna ku dhici doonaa gaalnimuu ku dhimanayaa adigana nebi maxamed uu kuu gurmanayaaye han kuu geeya kaalay oo iska soo islaam oo nebi maxamed ku dayay buu yihi raac waa hagaag uu soo kaxeeyey daedna markaa buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam khaalid ibnu saciid markaa nebiga hortiisuu ku islaamay aabbihii baa maqlay markaa saciid binulcaas baa maqlay in inankiisii uu diinta muxamed u galay waa makaa la joogaa dadka muslimiintu waa fara ku tiris weeyaan qof alihii qofkii muslimee islaamnimada ilaahay ku galladaysto markaaba waa la cadaabayaayo waa la dhibayaa walaalihiibuu u diru yidhi soo qabta waa la qabtay afarta addin baa laga xidhay biyihii baa laga dhabay baadkii baa loo diiday waxaa lagu qasbayaa inuu gaaloobuu ridoobo walaakiin isagu waxa uu leeyahay may laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam daedna marka uu kari waayey uu arkay ninkani inuu diinta islaamka uunan ka noqonaynin ayuu yidhi xarkaha ka sii daaya magaaladaa maka ha iska galo wejigiisa ha iga qariyo meelaan joogayuuna soo joogsan baadna siini mayno biyana waraabin mayno harraadiyo ooniya gaajaha u dhintee markii sidaa aabbihii uu ku yidhi ayuu yidhi aabba haddaad adigu quudkaad haysatay aad iga mancisatay aniga ilaahay baa ii quudinaya buu ka yidhi allah muslim jadiida oo shalay islaamay ayaa markaaba qalbigiisa yaqiintu ay ku dhibcaysaa oo ku leh hangaajoodo aabbahay han waayo walaalahay han waayo qaraabadayda han waayo waxay dhibaatay soo gaadha ha isoo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aanahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan haa diinta islaamka ha kugu filnaato ayuhalmuslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeenna ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo waddannadaa reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkao dhan u qaado markaasaan salaamnayoo salaamu calaykum maasha allah bal warranoo waxaa igu maqala inaad dhoofaysid markaasuu haa waan dhoofayaa xaggee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu ihi qaaradan africa la idhahay oo layskuma hadlayn karo buu ihi nabadgelya ma taallo tacliin ma taallo caafimaad ma yaallo shaqa ma taallo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka waddannada horuu maray ee nabadgelyadu ay taallo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso khaalid ibnu saciidna eeg shaluu islaamay aabbihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaab uu leeyahay
carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo kule aabba haddaad adigu baadkiiyo biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa iquudinaya oo isiinayay buu ku yidhi khaalid ibn saciid uu yimid nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waa markuu nebigu joogay daartii arqam ibn alarqam halkaa buu nebigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halkaa buu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makiga iimaaniyaadkii aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal umam as-saabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa iimaankooga ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay khaalid aabbaha waa sankaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimid odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma khaalid baa ha aabba waa khaalid weeyaan diintii moxamed ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha moxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi khaalid ibnu saciid wuu maqlayaa hadalka gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eego gacmaha cirka u taagay buu yidhi ilaahow aabbahay mowqifkiisi weli ma bedelina halkaasoo ma taagno ilaahow xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana u habaar xanuunka inuuba ka kicinba ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannamuu la tegay walciyaadu billaah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna ma aragtaane aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen abaa hurayra radia allaahu canhu markuu islaamay hooyadii oo da'ah gaalnimada weli baaqi ay ku sii tahay markaasuu abaa hurayra nebiga u yimaadaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga cilmiga ka bartaa haddana hooyadiibuu u tagaa wuu u soo khidmeeyaa mar allii markuu u tegana dacwaddu u bandhigaayo risaaladdu u bandhigaa markaaba iska diidaayo tiraahdaa ila dhaaf diintaada anu ma rabi diintaadee maalin maalmaha ka mida abaa hurayra allaha raalli ka noqdee isagoo lilmadu ay ka yaacaysa buu nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaa hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa ku hedhood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuula allah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadiibay weli iyo shirkigiibay ku sugan tahay mar kastana waan u bandhigaa risaaladda iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkaysan waayey bay igu tidhi buu yidhi oo hadalkaa waa maxay hadalkaa waliba adigay kaa tidhi adigay kuula jeeday hadal xun oo adiga aanan kuu qalmaynin ayay nebi allow adiga kugu tilmaamtay nebi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay inuu iisoo hadeeyo markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yidhi allaahumma hdi umma abi hurayrata abaa hurayrahan hooyadii ilaahow soo hadee abaa hurayre hooyadii ilaahow soo hadee deedna abaa hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi anuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan u radis qaaday buu se sii daayey deedna markaan shanqadhaydii markay maqashay ayay hadasho waxay tidhi ha ii soo gelina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyahay ku maydhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan nidhi way maydhanaysaa maasha allah markaabay tidhi ii keen maradii baan u dhiibay soo gal shahaadateynka ii qaba bay ku tiri waan islaamayaaye u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sal alla alay wasalam oohintan iminka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuula allah ducadaadii ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno 20ka oday 30ka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeeda wada muslimiin oo wada shahaadanayeen oo qaarkood innakay naga tawxiid fiicnaayeen oo naga diin fiicnaayeen oo naga dhaqan fiicnaayeen oo naga dadnimo fiicnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh
nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa Masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu tahkiim wadanada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqatu al-Qur'aan buu markaa ka qaadayay waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yidhi waan yaab Australia ayaa ka socda oo Qur'aanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yidhi America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yidhi ma garan kara buu yidhi xidhiidh baa jira buu yidhi xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yidhi maaha innika buu yidhi laga yaabaa aabbayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaabaa inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanayo weeyaan bifadli illaahi caza wajalla wa bikaramihi meelo badan oo adduunka aan maray oo safaro dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galadeystay nicmada al-hidaayah nicmada al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaalsano oo ku amal falno oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsantahay waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilayhima ilmiga ina diintaada barata waa fariidatun ala kulli muslimin wa muslima ina diinta aad taqaanana aad ku amal fasha waa qiyaamaha la isweydiin doona wal quraanu hujjatun laka aw alayka quraanka iyo diinta ilaahay ku siiyay maaliga qiyaamaha ama xujjo kugu furi doona ama adigu quraanku xujjo ku noqoni doona as-sawm wal qur'aan as-siyam wal qur'aan yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu al-qur'aan منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قاضيا لبا صومكنا وشفاعات قاضا قفكي صوم جري ووحو كورنيا يا ربي ادونك دشيدي مالنكي ايا شهودي سكربه ارغانه اله ارغدا اي اقبل بو اورنيا ارغان وهي quraankuna waxa uu leeyahay habeenkii buu kici jiro oo akhrin jiray ilaahu shafaacad ergaan u ahaa ergada ay aqbal buu isaguna leeyahay quraankii marka hadda diintan ku amal fasho maalinka qiyaamaha diinta iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin ad-da'watu ila allah fariidatu sharciyyah wa daruuratun bashariyah waana min asbaab al-hidaayah wad'u ila rabbika innaka la ala hudan mustaqiim nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa ilaahay kulaha dadka xagga rabbiga ugu yeedh haddaa dadka xagga rabbiga aad ugu yeedhaysid dariiqii mustaqiimka hanuunkii baad dul saaran tahay baa nebiga lagu yidhi dacwaddu markaad ummadda khayrka aad gaadhsiinaysid waa min asbaab alhidaaya waa asbaabta aad ku garan karaysid nicmadda ilaahay ku siiyey qadarkeega marka nicmadda ilaahayna siiyey islaamnimada han ku shukrino ilaahayna han ugu mahadnaqno meel kale indhaha u taagtaagin عز الدنيا والآخرة هذا دون تدين هذا هناك ابن عباس الله رأى لك النقطة السجية أبيبه وحيري عبادة إيه دين تاني خير كإلهي نسيي هذا وقفك كد دالو وإلهي حرير في عنه الله يشو وعبادة دي صلاة دي سلقة أقبله شف فوائد بأدوك دوشي دي إلهي كسيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد
cibaadadaada taacadaada diintan ilaahay ku siiyey dhaqan ay kaa noqotood ku dhaqanto shantaa nicmadood baa adduunka ilaahay kugu dul siinaya shantaa nicmadood nuurun fi lqalbi qalbigaa ilaahay nuur kuu gelinaya nuur wa diyaaun fi lwajhi wejigaagana iftiin baa ka baxaaya mar walba qof bashaashoo farxad badan baad noqonaysaa oo bilaa istarees ayaad noqonaysaa wa quwatan fi lbadani jidhkaagana ilaahay quwadiyo xoog buu gelinayaa wasicatan fi risqi arsaaqadaadana ilaahay uu ku waasicinayaa wa maxabbatan fii quluubi alkhalqi khalqigana jacaylaa ilaahay qalbigooda kuu gelinayaa shantaa nicmadood laguma helo lacag laguma helo aqoontan adduunyada maadigood lagu talax tago laguma helo qabyaalad laguma helo mansab ibnu cabbaas mufasiru lqur'aan xabru haadihi lumma ayaa kuu sheegaya oo kuleh haddii ilaahay adiga xidhiidhka inaga dhexeeya uu hagaagaa shantaa nicmadood baa adduunka ilaahay kugu siinayaa nuurun fi lqalbi qalbigaaga waa nuur nuurka qalbigu waa maxay waa indhaha qalbiga ayaa kuu furmaaya waa indhaha lagu arkaa khaaliqa iyo makhluuqa farqi maxaa u dhaxeeya adduunyadan gaaban iyo aakhirada waasica badan leh farqi maxaa u dhaxeeya daacadda ilaahay iyo macsiyadda farqi maxaa u dhaxeeya ashyaada iyo maataryeelka iyo salaadiyo camalka wanaagsan dhifran farqi maxaa u dhaxeeya islaamnimada iyo qabyaaladda farqi maxaa u dhaxeeya waa nuurka lagu arkaa waa nuur alqalbi weeyaan wa diyaaun fi lwajhi wejigaagana iftiin baa ka baxaaya xasan albasri allah ha u naxariistee caalim min culamaa'i salafi haadihi lumma oo taabiciintii ayuu ka mid ahaa wejigiisu asmaru lown midabkeennaasoo kale ayuu lahaa wejigiisa iftiin baa ka bixi jiray su'aal baa la weydiiyo lagu yidhi wejigaaga iftiin baa ka baxa maxaad samaysaa noo sheeg wuxuu yidhi saacadaha dadku ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu saacadahee waqta saxar wa bilasxaari hum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi mu'miniinta calaamaadka lagu ammaanay waxaa ka mid ah wakhtiga suxuurta waa wakhtiga khafladdu ay badan tahay waa wakhtiga shayddaanku qofka uu dushiisa ku yidhaahdo habeen dheer baa dushaada ahaadee iska jiif ayaan kacaa buuhi saacadaha baan kacaa deedna ilaahay baan la munaajoodaa markaasaa lagu yidhi haddana majliskaagan majaalista kale waa ka duwan yahay oo muxuu kuga duwan yahaa lagu yidhi yuu yidhi waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaaddii madaxdu ay dhaleen baa ku dhegaysanaysa maalqabeennadii baa ku dhegaysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegayaa buuhi taana jawaab baan niga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana way u bahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacagay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamuun ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyo kii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmad dadkao dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay sistamkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogayn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano sistem fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ininka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid muslimka sababtiisay adduunyadu ku socotaa muslimka shahaadanaya waa ruuxdii caalamka bini aadanka ruuxdiisu hadday ka baxdo jidhkani waa maydna waa la iska aasaa ruuxda caalamka ku socdo ma taqaanaa waa alislaam ina addiina cinda allahi alislaam laa taquuma asaacatu xata laa yuqaala fi lardi allah allah fii saxiixi muslim waxa uu nebigu ku sheegay
dabayl inay ka iman doonto min qibali shaab dabayl qabow leanna markaasaa qof kasta oo mu'mina ama misqaala darra waxay ishu aragto waxa ugu yar oo khayra ama iimaan qofka qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi dabayshaasi intay gasho sanka iyo afka intay ka gasho ayuu u dhimanayaa buu nebigu yidhi xataa midkiin hadduu buur caloosheeda uu ka geli lahaa dabayshaa intay ka daba gasho ayay ruuxda ka soo qaban buu nebigu yidhi qof mu'mina adduunka ku hadhi maayo dabayshaasaa mu'miniinta adduunyada ka wada rafacaysa falaa yabqaa fi lardi ilaa shiraaru lkhalqi baa nebigu yidhi dadka adduunyada ugu shar badan ayaa caalamka ku soo hadhi doona kuwaasoo wanaaggana aan isfaraynin xumahana aan iska reebaynin arsaaqadana dhinac walba laga dhigay ibliis baa isku soo sawiri doona oo odhan doona aniga maad i ajiibaysaan oo maxaadna amraysaa hanku ajiibna bay ku odhanayaan waxa uu odhan doonaa asnaamta dib u caabuda kuwaasoo asnaamta caabudaya buu nebigu yidhi oo ilaahay khayrkii caabudaya oo munkarkuna meel walba uu yaallo ayaa saacadda qiyaamada ku dhici doontaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalim saa daraaddeed walaalayaal muslim ogow caalamkan inaku inagu taagan yahay dad kale kuma taagno adigaa ruuxdii caalamka maxaa markaa lagaa rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa lagaa rabaa in islaamnimadu kaa noqon sheegasho ay kaa noqoto maaragtaane ku dhaqan waayo dhaqankaagaa ummaddu arkaysaa waddankan aad ku nooshihiin ininku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdigaa dhegaysanayaba salaadaad tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xashkaad gudanaysana ma arkaan oo maka intaanan la gelin waxaaba ku qoran maaragtaane mamnuuc qof aan muslim ahayn maba gali karaba zakadaad dhiibaysana gaaladu nasiibba kuma leh 8 sinfi ee zakada la siinayo waa dadka muslimiinta loogu talagalay marka haddii salaadaadii gaaladu aynan arkayn soonkaagiina ay arkaynin xashkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacun bay kaa tahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nebigeenna hosjoogsadeen markaa buu nebigu ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan igu samayn buu nebigu yidhi quraysh waxay nebiga dhib u geysteen la og yahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nebi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaan maanta inaan igu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya intay sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nebigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiiba mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii oo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyaddee masra ayuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfir allaahu lakum wa huwa arxamu araaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiinna ha dhaafo kuwa naxariista ka uu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqalladiinna gala buu nebigu yidhi aamin baa tin wayna nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqallada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo waa shahaadanaya yaa allah waa maalinta uu khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii quraysh la googoynayey ansaar saasay yidhahdeen ansaar markaa buu nebigu yidhi may cabbaas u sheega ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la laynaya ma aha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wamaa arsalna
naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya siday diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmayaa inaan dadaalkaas ziyaadinno ducada badinno diintu ay naga noqoto maaragtaan ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababinno insha allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammad